الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa kulankeena waxaan uga hadlaynaa qodob aada muhim u ah oo mabaadi'da guuleysiga ka mid a oo la yiraahdo iskaalmaysi. af carabiga atacaawun baa la yihahdaa, ingiriiskana cooperation baa la dhahaa. waxaynu hore uga soo hadalnay duruustii hore markaynu ka hadlaynay tabarta nidaamsan ama daaqa muntadima wax la yiraahdo ama organized effort wax af ingiriiska lagu yiraahdo baynu hore uga soo hadalnay. iskaalmaysigu waa bilowga tabarta nidaamsan. u fiirso qaabka jirkaagu walaal u dhisan yahay, gacmahaaga, lugahaaga, madaxaaga, beerkaaga, wadnahaaga, muxuu ahaa jirkaaga oo dhan, maskaxdaada, waxaasoo dhan, keliyahaaga, kulli waa fara badan yihiin, laakiin waa isla shaqaynayaan. haddana maxay samaynayaan? iskaalmaysi. isku meel bay shaqadii u wadaan. saa waxaa ka garanaysaa inay xayaatadu ku dhisan tahay iskaalmaysi. qof keligiis casriga kan ma gaari karo meel. casrigan waa casriga iskaalmaysiga. qof keligiisa ordaya oo iska damdam leh, aqoontiisu intee la eg tahay, khibradiisu intee la eg tahay, tabartiisu intee la eg tahay, intee buu soo jeedi karaa, waxaad garanaysaa inay tahay in yar. halkaa waxaa ka dhashay in dhakhtaradu ay samaystaan ururka dhakhtarada, macalimiintu ururka macalimiinta, ururka shaqaalaha, ururka beeraleyda. maxaa dhacay? iskaalmaysi waa loo baahan yahay. qof keligiis wax ma qabsan karo. hal mar bay shaqada wada joojinayaan, markaasaa la maqlaya warkoodii. laakiin hadduu mid iska keligii seexdo wax weyn maaha. shaqo kasta oo la rabo in la qabto oo weyn, laba shay bay u baahan tahay. waxay u baahan tahay dad aada u kala duwan oo kala nooc ah, dadkaasoo haddana leh aqoon kala duwan iyo dhaqano kala duwan. kuwaasaa iskabi kara marka. mid waa ma garanaysa waa nashaad badan yahay, mid waa fikri badan yahay, mid waa wuxuu ku fiican yahay xisaabaadka, mid wuxuu ku fiican yahay beeca, mid wuxuu ku fiican yahay. marka way iskabayaan, meeshii loo jeeday bayna shaqadii geynayaan. hataan tijaarada ka soo qaadno, waxaa lagama maarmaan ah in la helo 3 qolo. tijaarada inaa ku najaxday haddaa rabtid 3 qolo waa in la helaa. qolo wax soo gadida ku fiican oo badeecadii iyo soo iibinteedii iyo asxaarteedii iyo suuqii taqaana. qolo ku fiican iibinta waa qolo labaad. qolada saddexaadna waa qolo xisaabaha ku fiican. 3daasu meel kasta oo tijaaro ah kama maaranto. shaqo kasta oo macno leh oo aan tijaaro ahayn ama kayraha ama wax kale ah, 2 shay bay u baahan tahay iyaduna: iskaalmaysi iyo nidaamin. shaqadii haddaan la nidaamin macno ma leh. haddaan la iskaalmaysanna iyadana meel la gaari maayo. walaal wuxuu yidhi Napoleon Hill, walow aad arkaysid dadka adduunka joogoo dhan inay dagaal ku jiraan oo xayaatadii la kala jiidanayo oo qof walba qof kale inuu ka hormaro rabo, iyadoo saa ay tahay oo wax la kala qaadanayo, haddana waxaa habboon buu yidhi in wax loo kala qaato si ay ku jirto iskaalmaysi iyo raalli ahaansho. ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa win-win situation. win-win maxaa waaye? adiguna guulayso, aniguna aan guulaysto. laakiin qofna kaa yeeli maayo adiguna khasaar, anna waa guulaysan. anna yeeli maayo adigoo guulayso anna aan khasaaro. maya, win-win situation baa adduunka ugu fiican. marka dadku ay wada hadal gelayaan waa inay halkaa ku galaan. ingiriisku waxay yidhahdaan knowledge is power. knowledge is power. cilmigu waa tabar. hadalkaasu ma dhamma. knowledge-ka
باورka ah waxa waaye organized knowledge wey, cilmi nidaamsan oo lagu daray shaqo ayaa wuxuu power iyo tabar yahay. hadda haddaan soo qaadano qaamuuska waxaa ku yaala wax walba, cilmi encyclopedia habaalka leeyahay madaarita wax walba ku yaala, haddana tabari kama muuqato sababtoo ah ma nidaamsana, ficilna lama raacin. dad badan ba waxay aaminsan yihiin aqoontayda waa in wax laygu siiyaa. aniga maxaa dhacay? aqoon baan leeyahay, jaamac hebel baan ka soo baxay, haddaan waxaa lay siinayn anigu ma ogoli. ogsoonow walow saaxiibkayow, adduunku saa uma shaqeeyo. adduunku wuxuu ku shaqeeyaa waxay tus oo itaabsii, waxay tus oo itaabsii, wax samay, wix may anfaceen waxbaan ku siin, ama waxaasaa qalbiga iga buuxoon aqaanaa, adduunka wax kuma bixiyo. waxaan kaaga soo sheegay duruusaheenii hore 2 nin oon isku galaas ahayn oo labaduba ilaa hadda shaqo aanan ku ogeyn, iyagoo niman waaweyna oo weliba mid dhakhtar noqday, midna uu secondary ka baxay oo kaa secondaryga maalin meel uma shaqatin in la yidhi, kan dhakhtarkana meelo yaryar buu ka shaqeeyay, hadda meelahaasu ka qaylqayliya. marka maxaa cilmigoodu tarayaa? waxba tari maayo haddaan lagu darin shaqo haddaan lagu darin. waxaa kaloo wax lagu helaa inaad dadka kale gelisid ama ka soo saartid inay shaqeeyaan oo wax qabtaan. taasuna waa waxa loo yaqaano hogaaminta, waa cilmi dhan oo isagana aada loo baahan yahay. laakiin walaal waxa aan sheegaynoo dhan oo kaalmaysi waxaas oo dhan, cudur waxaa jira la yidhaahdo procrastination ama taswiif ama dib u dhigasho acmaasha oo dila wax walba. haddii kaas aadan iskala diririnina meesha aad joogtid ka kici maysid. waxaa kaloo iyadana dadka dila, aabbahay saasuu ahaa, reer hebel baan ka dhashay, basaboor hebel baan wataa. haddaa waxaa aaminsan tahay asaagaa baad ka haraysaa. carabtu waxay yidhaahdaan laysa alfataa man yaqulu kana abi walaakina alfataa man yaquluha anadaa. waxay yidhahdeen wiilka dhabta oo ragga ah ma aha midka yidhahdo aabbahay baa saa ahaan jiray, laakiin waxa weeye wiilka dhabta ahi midka yidhaahda waa ikan aniga waxaanaan ahay. xataa maamaha waxaa jirta odhanaysa aabbahay baa waxaa lahaan jiray intaasoo faras iyo geel iyo waxaas, waxaa ka fiican dameer baan leeyahay, dameer baan leeyahay baa ka fiican. waxaa kaloo muhima qofku inuu riyo yeesho. riyo waa maxay? wax inaad gaartid aad doonaysid, waa riyo fiican. riyadaas waxaad ku imagination ma hore usoo sheegnay inuu qofku wax khiyaal leeyahay. marka riyo, laakiin dadku 3 nooc bay u kala baxaan. nooc riyooda bes aan ficil ku darin, kaasu macno ma leh. 24 saac waa riyoona, anigu waxaasaan gaari doonaa, waxaasaan heli doonaa, halkaasay ka dhici doontaa. waxaas waxa weeye meel laguma gaaro. dadna dadka kale riyadooda bay fuliyaan, waa fiican yihiin kuwaasuna. qof riyooday oo afkaar iyo wax la yimi bay fuliyaan. qolana waa qolada ka fiican qolada tane, riyana waa leeyihiin, wax fulinna waa leeyihiin. kuwaasaa ugu fiican dadka iyaga ah. qofka caajiska ah xaggee uga timaha caajisku uga yimaadaa? waa cudur jira caajisku, inuu qofku waxba qabto ma rabo, maskaxda bay ka imanaysaa. qofna maskaxdu caajis ka yahay, qofna jirku caajis ka yahay. waxa ugu daran kan maskaxda caajiska ka ah. marka iskala dirir xagga maskaxda inaadan caajis noqon. ogow cunno badanaad cuntid iyo adigoon isboorti cayaarin caajis bay kuu keenaysaa. markaasaad xanuuno dareemaysaa, markaasaad dhakhtar ku wareereysaa. dhakhtar hebel utakan waxaa laga yaabaa wixii baad isboorti iyo cunada iska yaraysid kaliya inay u baahnaayeen iyo biyo badanaad cabtid. laakiin dhakhaatiirtu badanaa kuu sheegi maayaane waa kaa faa'iidaysanayaan. anuu aada uga xun dhakhaatiirta inaan wada ceebayo. waxay ku oranayaan xaggee, haa klinigaas qaado, irbadahaas qaado, igu soo noqo. ma garanaysa? leanna shaqadiisii baa ku xiran. qofka maxaa ku dhaqaajiya in iskiisa u dhaqaaqo wax u qabto?
isagoon la farin kow lacag doon inuu yahay, labo guur doon inuu yahay, tan saddexaad inuu nafsadiisa badbaadinayo. saddexdaa shay baa qofka ku xambaara inuu dhaqaaqo oo nafsadiisu iskiis u dhaqaaqo. waliba mid afraad baan kusii dari lahaa anigu uusan Napoleon Hill uusan dirin, diintuna waa dhaqaajisaa dadka. dardaaran waa laga yaabaa walaal inaad guul keligaa gaari kartid, guul yar inaad gaari kartid, laakiin haddaad rabtid guul weyn inaad gaartid oo dhaxalgala, iskaalmaysi dad kale kama maarantid. dadkii hore oo guulaystay waxay lahaan jireen iskaalmaysigay xoogga saari jireenoo dad aqoon leh oo xeel dheere shaqadooda aada u yaqaan ayay waxay gelin jireen fikradahooda oo ku beeri jireen, iyadoon khasbaynin bay waxay ka dhalin jireen shaqooyin iskood iyagu ayan qaban karin ama aqoonteeda ayan lahayn. taasna waxaad ka garanaysaa dadka shirkadaha maalka leh siday u dhaqmaan. dakhtarkii baa jooga, injineerkii baa jooga, macalinkii baa jooga, kii wax dhisaya jooga, kulli isagu waxaasoo dhan ma yaqaan, laakiin kulligood muxuu geliyey isagoo maslaxadooda halkaasna ka wada inay la shaqeeyaan oo guul gaaraan. ogow xaaskaaga iyo caruurtaada waxaad uga baahan tahay bardow iskaalmaysi, laakiin waa goorma? waa markaad talada wax ka siisid. iskaalmaysigu bilaash kuma yimaado walaal. intaad shirkad furatid qof waliba waa ku kaalmaynaya ku oran mayo, ee waxaa jira wax walba waa inaad wax ku bixisaa. dadka ugu fiican waa inaad shaqaalaysiisaa, noloshooda waa inaad ka fikirtaa, himilooyinkooda waa inaad ka fikirtaa. weliba waa inaad dadkaas aadan ka dhigan weligaa sida dad tujaarta qaarkood u dhaqmaanoo faqiir inuu ahado ku hoos fadhiyo aadan ku fikerine inuu mar isaguna maal yeesho oo wax qabsado aada ku fikirtaa. laakiin akhiiran ugu dambeyn waxaan kugu waaninayaa qofkaad kaalmaysanayso marka hore ka baaraan deg aqoontiisa, amaanadiisa, wanaagiisa, shaqadiisa. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa mawduuceena. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.